السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا كسو دبادة channel كينا هبة محمد أحبابي aad baan idin salaamay dhammaantiina meel walba dunida daafaheedaad ka joogtiin khayr badan ayaan allahu jala wacalaa ka baryaynaa inuu inagu irsaaqo biidni illaahi kariim. intaas kadib maanta mawduuceena waxaan uga hadlaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. dad waxaa jiro baraha bulshada ku jiro ama aan si ahaanba u dhahay adigoo baraha bulshada ku jirin مثلا ama social media ku jirin ayaa waxaa dhici karta inaad doonaysid inaad qof wax u sheegtid مثلا aad yacni qof wax u sheegtid ood waanisid garanaysaa. laakiin qofka markaa wax u sheegaysid waxaa wanaagsan inaadan hoos ugu dhaadhicin yacni aad subxaan allah ilaa xad inaa yacni ma aragtay aad lafagaraa aad ku samaynin. مثلا qofku waxaad u sheegaysaa sax, waxaad doonaysaa inaad waanisid sax, waxaad doonaysaa inaad dhahdid waxani kuuma wanaagsanee waxani iska dhaaf, sidan baa kuu wanaagsane sidan yeel, sidan hadda aad samaynaysid si fiican ma ahan. مثلا waad waaninaysaa ma ahan, waxbaad u sheegaysaa, laakiin inaad sheegidii aad u sheegaysay ama waanidii aad waaninaysay ama ka hadalkii aad ka hadlaysay ama falcelintii aad samaynaysay مثلا inay noqoto يعني مثلا wax aad ka aragtay baad doonaysaa inaad falcelin ka samaysid soo maahan ood qofkii ugu nasteexaysid oo dhahdid sidani ma wanaagsaneen hebel inuu saan la soo fariisto meesha ma fiicneen. waxaa wanaagsan dee si nidaamsan inaad warkii u dhahdid oo yacni si fiican oo qofkiina aadan ma aragtay aad ku xadgudbin oo aad samaynin inaad ma aragtay aad ugu dhaadhicin oo hoos aadan u aadin ma fahantay daaqil yacni inaad ma aragtay. waxaa wanaagsan qofka waxa sheegayo inuu xadkiisa yacni inaad is ilaalisid. qofkaad wax u sheegaysay مثلا ama aad doonaysid inaad wax aad gaarsiisid ama waxa uu ka hadlay aad rabtid inaad dhahdid yacni sidan ma ahayn si wanaagsan uga hadal inaad yacni subxaan allah lafagaraacdid aad ugu dhaadhacdid ilaa qofkii uu aad ku karaahsado. marka waxaa wanaagsan wax sheeg qofka walaalkaadana u nasteexee laakiin si degan oo wanaagsan oo qofkiina uu kugu dhaho macnaha waad mahadsan tahay xitaa hadduusan ku dhihin waad mahadsan tahay laakiin aad qalbigiisii ilaalisid. annaga waxaan naqaanaa markuu meesha soo fariisanayay ama social media uu iskeenayay ama warkii uu ka hadlayay ama uu asaga wixiisii khaaska u ahaa private ka u ahaa oo khaaska u ahaa asaga meesha la imaanay ma anagaa dhahnay oo dabada kasoo riixnay oo dhahnay la imow mise inaga afka ka qujeynay oo dhahnay hadal oo dheh waamay. marka in runta loo sheegaa waa in runta loo sheegaa. soomaali haddaana yaab in runta loo sheegaa is okay runta u sheeg laakiin runtiyo quruxsan u sheeg, runtiyo qallafsan. laga yaabo qofkii inuu xanuunsan yahay maskaxiyan wax si ka noqdeen markuu hadlayay. nasteexaduna dee diinteeduna waa nasteexa in laysku nasteexeeyo, laakiin inaad qofkii wuxuu sheegay iyo wax kalaba inaad iskugu dartid iyo si adig kula tahay sidaas weeyaano saas waayo kidaa waayo inta ka baxdayo qofka sida. marka qofkii wuxuu ka cabanayay ama wixii ka buuxay oo sheegayay wax kasii daran ba adiga ma aragtay aad ku samaynaysa oo hadalkaadaas yacni wuxuu ku noqonayaa damage, hadalkaadaas dhibaato iyo xanuun ayuu ka qaadayaa. waxaa wanaagsan marka haddii wax la isku sheegayo orod qof walaalkaada inaad wax u gudbisid rag iyo dumarba ha noqdee inaad si wanaagsan aad ugu gudbisid ood u sheegtid, laakiin inaad lafagaraacdid daakhil gudaha inaad u dhaadhacdid oo qofkii hoos u aadid wallahi ma fiicno. lianna qofka qalbiyanuba kaa dhibsanaya macdallah inuu warkaadii inuu qaato iska daaye wuu ku dhibsanayaa xitaa kada si degan ugu sheegtid. tan labaad wax in cusbo iyo sokor lagu sii daro maaha. haddaad wax sheegaysid xitaa waxaa wanaagsan wax munaasab ah. والله marka ilaahay subxaanahu watacaala hana ilaaliyo insha allah
dadka wax u sheegayana noqoda dadka u nasteexee ee si wanaagsan wax ugu sheega aysan dad khallafsan oo adag ha noqonina dadka wax u sheega billah calaykum khayr badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.